maanta waxaan joognaa Somaliland Banking Association oo loo qabanay shaqaalaha bangiyada. runtii tababarkan wuxuu ku saabsan yahay First Aid and Fire Safety Training weeyaan. waxaa soo qabanqaabiyay tababarkan si wada guud First Aid Training Center iyo Somaliland Banking Association. tababarkan runtii waxa laga faa'iiday wax weeyaan maadaama macaamiil badan ay imanayaan bangiyada runtii qaarkood xaalad caafimaad qaarkood dhaawac soo gaari karo runtii la caawiyo oo lagu caawiyo xirfadda First Aid-ka. bangiyadu waa meelaha ugu badan dadku yimaadaan oo yimaadaan macaamiil badan oo kala duwan oo bulshada qaybo kala duwan. taas waxay keeni kartaa in dadku meel meel isku yimaadaan waxay dhici karaan inay dhaawac qof soo gaari karo dadna qof xaalad caafimaad soo boodi karto. marka dadka shaqaalaha ka bangiyada waa inay leeyihiin xirfad runtii caawimada koowaad gargaarka koowaad ay runtii ku caawin karaan. muhiimadda weyn ee First Aid-ka waxayaan saad ereyga ka dhadhansanaysaan waa caawimada koowaad. marka caawimada koowaad caalamku waxay ugu tarkaan qof kasta ee ibni aadan in ku gaashaanaado xirfadda First Aid-ka iyadoo wax yaro talaabo yaro kooban adoo sameynaya misalan qof naqas ka qabtay oo hawo mareenka xiran madaxiisa dib u dhigtay waxay ka dhigan tahay qofkaas in hawadii jirkiisa soo gasho. marka talaabadaas oo kan leed garan saxaalad caafimaad oo dhakhtarka la geeyo waxay noo sahlaysaa in qofka kan uu hore u sii badbaado oo runtii hore u bogsado. marka qof kasta shaqaalaha waxa ku waajiba inuu customer ugu shaqeeyo naftiisa inuu badbaadin karo. waan ku faraxsanahay inaan la shaqeyno maanta ururka bangiyada Somaliland kaasoo runtii noo suurtageliyay fursad inaan runtii bulshada Somaliland badbaadadooda ka shaqeyno runtii. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. tababarkan waxaa qabtay ururka baananka Somaliland. aad baan ugu faraxsanahay ka qaybgalayaasha bangiyada Dar es Salaam Bank, Habshiil Bank, Premier Bank iyo Amal Bank iyo Central Bank. tababarku wuxuu ahaa First Aid Training oo ahaa qaabkii qofkii hadduu wax ku dhaco si loola dhaqmi lahaa. ururka wajahadiisa waxaa ka mid ah in ay tababarada u qabtaan bangiyada. waan ku tala jirnaa inaan tababaro kala qabano oo muxuu ahaa bangiyada isku xidhkooda iyo shaqaalaha sidii loo kor qaado skillkooda. waxaan u mahadcelinayaa dhammaan participants-ka dadka soo qayb galay. aad iyo aad baan idinku maaragtay mahadcelinayaa. waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala inuu noqon kulankii koowaad ee kulamo badan oo dambe oo wada samayn doono. department-nada aad ka socotaana aad iyo aad baan u hambalyaynayaa. waxaan hubaa xirfadda aad barateen maanta inaad department-nadaas aad ku badbaadin doontaan haddii wax musiibo dhac Ilaahay naga hayo. ugu dambeyn waxaan u mahadcelinayaa qoladan First Aid-ka inoo soo qaban qaabisay oo training kan muddo dheer isku dayay inay bangiyada gaarsiiyaan.